Hello everyone, idin salaamay. Magacaygu waa Qalbus University. Haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe, share iyo like to noo dhiirigelin mahadsanid. Weekly recap baan isleegaynaa tiriyadii baxay. Inkastoo aan suuqa lahayn khamiis iyo malaha khamiis iyo wax noocaas ilaasadeed aniga lahaa. Dhegeyso maanta ayaa la sameeyay half the week waxay ahayd 12 noocaas 12 bisha. Nilaha arbacyo khamiis suuqa ka raadi jimcahana bay. Markaas suuqa waa unique bayska lagu shiiday anigoo saadaalin sidaan sheegayna may noqon suuqa iskaga socday up iskaga socdo dawladii uu qaaday in uu la soo celiyaa marka jimcahan lahay bay baa baxay baa baydii baa baxday in arbacyo khamiis suuqa buux noqday up noqday oo down noqon nuur jeedaan suuq markuu qaaday weekly low markuu qaaday oo xidhmay oo ku furmay oo jimciyo isniin saasnay iyo arbaca iyo jimca dadii cisna buu noqday marka waxaan isla hadii pressure kan la qaado interface bay noqonaysaa kan la qaado interface bay noqonaysaa ila weekly wuxuu joogaa value balance buu joogaa daily in hadii la qaadana calaamad interface aan isla laakiin halkan waxay naga xiga fair value gap daily naga xiga imika 1 hour ka u daadegno suuqu liquidity uu qaadanayay suuq markasta uma kacay isagoo meel aan ku tiirsanayn markii uu furmay isniintii uu suuqu ka kacay fair value gap ka kacay suuqu fair value gap ka kacay oo laga baagiray haddana fair value gap ka kacay inoo laga baagiray haddana fair value gap ka kacay inoo laga baagiray oo news baa inta xaajiyay news baa inta dhaqaajiyay haddana waa laga baagiray fair value gap ka markii maadalka laga baagiray suuq risan ku baxay oo ku sheegi karaa oo bayga u noqday haddana kan fair value gap ka ma ka sugnay on shifting loo sameeyay fair value gap waa la keenay lagama keenin nolma sameyn shift iyo waxa nolma sameyn waxaan jeedaa fair value gap laguma soo noqon mar kasta suuq fair value gap ka kacayaan buu meel kugu tiirsanaada marka taasi ku baxaysay firsada bayga inagu waxay lahayn khamiis iyo sida nagu muuqata arbacyo khamiis suuqa salka raadi baan lahayn jimcahana bay markaas suuqu liquidity soo qaadaya inuu soo kala laabta laga yaabaa oo meelaan marka ka tegay for hour fair value gap weyn ka tegay lugtan dhan weyn la soo buuxiyaa future-ka lugtan dhan la soo buuxinayaa iyaga soo iyadana saas oo kale inkastoo iyada la joogo weekly fair value gap oo la yimi laga baagiray haddana suuqniyo waxaan isla hadduu liquidity kan qaado reversal iska taato iska socday marka iyadana in meelaan la keenaa fair value gap la soo qaadaa future-ka goor la soo qaaday laakiin waa la qaadaya sida kun ba loo soo bixinaya kan waa la qaaday kan haddana waa inta kan la qaaday laga baagiray haddana sell waxaan fair value gap la soo buuxinaya mid kasta kan waa la buuxiyay kan waa la soo buuxiyay kan waa la buuxiyay marka waxaan la soo buuxinaya lugtan dheer ee saas ka banaanaysa ma jirto laga yaabaa adoo future-ka inuu kan soo socdo soo buuxiyo kan haddana kaa soo buuxiyo laga soo tirtiray haddana kaa buuxiyo bay sell ka qaado laga tirtiray suuq waa unit tiriyadii baxay aan isleegaynaa USD shalay waxaa jiray trade aan qaadanay oo GBUSD aan bay u qaadanay waa jira 20 bimna siya jira taniyo ko trade wuxuu nagu tirsanaaday meel
fair value-ga 15 minute lagu tiirsaday mar kasta waa in meel lagu tiirsanaadaa OP ha ahaato ama fair value-ga ha ahaato. suuqani fair value-ga 15 minute lagu tiirsaday fair value-ga 15 minute sanadan OP baa raacay. waxaasoo dhan markay israaceen haddana waxaa lagu qaaday sell-side-kan baa lagu qaaday. sell-side-ka marka lagu qaaday suuq kuu sameeyey 15 minute shift markuu sameeyey baygaagaas ka qaadanay halkaasaan ka qaadanay ilaa haygaasaan haysanay soo kala wareegay suuqa silkeena 10 pip buu ahaa. sidii shalay aan qaadanay bayga ahayd ee wiigan dhan baa winkina noqotaas ahayd 2 trade ka horreeyey baan qaatay midna news bayga baxay midna sl bayga garaacay suuqoo abaan kasoo horjeestan sal u tumayey macaldayn 5 minute guud technology naga siiyey fair value-ga iyo shiftigii iyo calaamadihii ruleski sideega xayiro xun raalada sideegaya waa kan calaa kuu qaaday aasiyan lagu kuu qaaday uu kuu sameeyey fair value-ga kuma kuu soo noqday OP-gaas laga soo celiyey suuqa rusun kuu soo noqdo rusun ku baxay waan kuu sheegi karaa. marka fursadii baxay euro meel fair value-ga 15 minute loo joogay halkan shifti bay ahayd waxaan doonaya fair value-ga in lagu soo noqdo waa lagu soo noqday but laakiin timeka wuxuu ahaatee iman price-kii ma ahayn oo labadii yax buu ahaa xilligan hadda waa New York baa furmaba New York meelaan ka furmayba ama New York ka furmay newski waxaas dhahaa sell-side-kan la qaado baa tumahan laakiin may dhicin. marka trade-kan suuqni shalay kan buu ahaa wixii jimcihii 50 minute sameeyey trade drive buu noo sameeyey fair value-ga ismiinaysta qurux badan insha Allah lagu soo noqon doonay laakiin suuqu iska kacay trade-kaasaas nagu dhaafay laakiin GBSD baan ka faa'iidaysanay fursadii bayga ahayd sidoo la jeedaan waa niman yaa suuqa inuu meel nagu tiirsadaa 1 hour-ka tag lugta dhinaca kurta fair value-ga oogin ku jira haa hadduu ku jiro fair value-ga waa lagu imanaya lagu ixtiraamaya soo furo calaamada short long position-ka waxaan jiraa fiibkaaga meel discount ama lagu joogaa course sell-side ma lagu qaaday amba asiyan soo taqaano waa laga qaaday shifti ma lay sameeyey yes lay sameeyey placement qurux badan breaker block trade drive-kii mar 3 afraad lagu dhiti la qaadeen long position 1 to 3 gaaga hayso 1 to 2 aninka 1 to 2 waan ka dhigtay targetkii because badana trade waxay baxaan 10 bibna lama gaarin trade-ka isagana saas ugu baxay maalinkaa inagu inaan xalala oo trade-ka aniga SL bus aniga halkan buu SL iga garaacay sababta SL iga garaacayna waxa weeye horta meel halkan layguma tiirsanayn laakiin only waxa laga qaaday brief daily high haddii brief daily high laga qaaday waan wadanaha Shanghai-gii laga qaaday oo buy sera kama shift ka dhigtay meelaha fair value-ga uu weynaa marka waxaan ka qaatay OP-gaasan ka qaatay waan soo diray OP-gaasan ka qaatay SL baa laga garaacay marka aniga trade-gaas risk-gaas iga baxay way iga hoos baxday inuu suuqu sababtoo ah sell baan suuq ka rabay laakiin suuqa fursad baa ayaaba ka baxday oo banaaneydba aan arkayn trade-ka isagana saas ugu baxay khamiistii malaha waa kan waa tala waa in waxa weeye waa khamiistii weye kani khamiistii weye asala jimciye kan waa khamiistii kii kala baxay waa kan isagana arbacadii baxay newsku dhaqaajiyey trade-kan wuxuu kole wixii qaaday daily high wii qaaday daily high markii qaaday meelaha lubay gamay tiirsanayn
halkan ii yaalaan filayaa buy side ba xaggan iga xigay waxa dhacday ragga maan kasoo galay anugu bartaasaan kasoo galay ilaa waxaan doonaya inaan looga targareeyo 20 bbs suuq wuxuu bixiyey 90 bb 19 bb buu bixiyey laakiin berigii hore buu iga dhacay traderkana oo traderka saddexaad weygaan qaatay laakiin trader baa xaggan ka banaanaa wani kuri inuu suuqu inuu meel ku tirsada waxa ku tirsatay 1 hour fair value gap waxa lagu qaaday kow London low baa lagu qaaday oo silsila kow haddana lagu soo qaaday silsilkan hoose shifti baa ku dhacay iri dareeq qurux badan baa ku dhacay fair value gap kaas baa kacay laakiin news lama tradegareeyay ay sleep beachkiisu wax kaaga saaraya waxaan nabi caadahay inuu traderkaas arbacadii saasoo ku baxay trader kale baxayna waxa weeye waa sidii ma baxay trader u baxay laakiin ku rarrabtay de fair value gap baa lay tegay 1 hour waxaa dhacay waxaa laga qaaday London low baa lasoo qaaday ICN low baa lasoo qaaday silsilkan baa la qaaday shiftigan baa dhacay laakiin SL ku dhacay traderkani SL buu ka garaacay shifti gum ku sameeyay breaker blockgaas ka qaateen long bulshada soo furno hadda SL baa lagu dhufanaya traderkana saas ku baxayo wuxuu ku beegmay habeennimadii 8 subaxnimo 8 habeenimo ku beegmay odiga 20 8 habeenimo ku beegmay laakiin trader kale lacag ka baxay traderkan saas ku baxay arbacadii intii trader kala baxay laakiin trader bixi ma fiya oo isniintii waa suuq furmada inagii doonayn suuq la soo kiciyay marka suuq reason ku baxay sababtoo baxayna sheegi kartaa dad ASEAN loo la qaaday kaliya trader ku tintid saaib lagu cunaniyo traderkana wuxuu ahaa trader aad u qurux badan buu ahaa kow meel baa lagu tirsaday inkastoo in yar loo soo tirsaday markii dambe laakiin la qaaday wuxuu qaaday ASEAN loo qaaday laakiin wax surprise silsila ma qaadin halkan uu shiftiga sameeyay trader ku sameeyay oo breaker blockgaas igu noqday long bulshada soo furanaya bbs ombi bas ka dhiganaya traderkani wuxuu dhawaaqay ilaa haysanaysaa hayga dawladtii ugu soo dhow meel weyn anigu sida intii uu taqaano inaad exit kana taqaanaa nimayaw saasuu weekly ka shanta cisho traderkaasuu ku baxay shanta cisho traderka qaatay weldon baan ku leeyahay wiigi kaliya soo socdaan trader un qaado sababtoo haddii 5 trader weyn aad haysataa jimcii marka laga reebo waa 4 cisho marka hal lacag trader gare you don't need waxa u baahan tahay hal setup hal shan saddex trader weekend baa 2 trader weekend weldon isaga magaalada soo qabso because lacagna waa sameynaysaa oonad baashaalaysaa baraad iyo waxaa sameynaysaa lacag kuu gaara adigoo lidin wax saxan oo haystaa dhiista 100% TV ku dhacaya days magarad marka wiigi 2 trader qaado dad isniin 3 trader hedho arbaca iyo khamiis jimcaha imaanba soo daba fadhiiso ma laabtoon deegaanka sida magaalada gal iska qabso xabta la baashaa adigoo lacag sameynaya iyaguna iska waswaslayaan asxaabta ugu yeedh suuqan ay freedom u gaadhaan guys anyway easy waqti buu doonayaa inuu waxaan qanayn in ay ku qaadatay inuu trader noqdo 2 years wuxuu gubay wallah 40 challenge uu gubay sax adna 3 beed bisho suuqan baad leedahay miski daya no 2 years bay ku qaadatay ku yar balaadiin baa la dhahaa 2 years bay ku qaadatay inuu trade inuu waxo inuu maantana waxa haystaa 1.7
1.7 milyan funder weeye funder trader weeye wuxuu haystaa 4 kun min 400 oo Kenya warrant waxaan waqti bay leedahay gas dhiibin waad helaysaa guys don't worry yani istaraatiijiyad kastana way shaqeysaa waxaa la isku dhaafay oo trade plan waniyo qofkas intii uu qaadan karaa laakiin trade plan leedahay sid intii uu garanayso neegsiid uu garanaysaa wanaad inta halka trade list garanayso inaad garanaysaa inta akoonkaaga greedy noqotay iyo akoonka bel iska dhig magacadana shirkadu waxay noqdeen no limited akoonka meel iska dhig deema dib ugu noqo greedy meesha saar maalin lagu taajira ma jirtaniyo day wiigaas halkaaga dhacday sokay 3% buu kaga dowladda ku jira haddii maaragtay ninkan 17 furan yahay 17 inuu ku furan yahay matalan ninkii baa ku furanba ninkii trade koowaad waxa miskiga waxaad lose gareysay 10% 1% akoonkaaga waa $100 waxaana la gashay lot 10 haddaad win garin layd waxaad helaysaa $300 marka 10,300 ku darto dee lot 10kii la gelin waxaad risk gareysaa lot 20 la gal haddana times 30 waa 600 plus 9 akoonkaba 2 trade baa ku baasan kartaa hadduu kaaga dhaco 1% drawdown hadduu kaaga dhaco oo waxaad la gashay waa 10% baa ka gubeen 1% baa akoonkaaga gubtay matalan soo qaad baa 1% drawdown ku jira 10kii hore risk gareyn 0.5 risk garee 0.5 $5 la gal $1 la geli haddaad win gareyso waa 10 waxa weeye waa 150 haddaad asalkaaga dhacdana waa $50 still caadi haddana 0.5 la gal 2% markuu ku dhaadhaco waxaa la gashaa 25 la gal oo haddana lacagtan soo celi mar kastoo lacagta linkaagu sii siyaado lacagta risk garinaysa kor u qaad mar kastoo meeliskaagu muxuu drawdownkaaga batana lacagta risk garinaysa yaree kan ku baasan kartaa inaad waxaan ku qoraynayo maalinta funder noqoto inaad waxaan qortaa guys aad mantirin u baahantiina programka iga soo qabta aqoon inaan si fiican isku fahmo